marka hore markaad aragto waxaa laga yaabaa inaad u malayso in dadkani ay gubayaan kubbadaha ay carruurtu ku ciyaaraan, laakiin xaqiiqdu midaas way ka duwan tahay daawade. kubbadahan waxaa laga sameeyaa laamaha dhuudhuuban ee geedka loo yaqaano bambuuga, waxaana farsameeyaa dad u dhashay dalka Nepal. waxay dibadda kaga qabanayaan dab kulul si ay uga nadiifiyaan ugana dhigaan qaar adag. dalka Nepal kubbadahan waxaa loo adeegsadaa in laga sameeyo sallado qurux badan iyo alaabo guri oo adag. alaabooyinkaasina waxay jiri karaan sanado badan iyadoo ay ku xidhan tahay tayadooda, taasoo u noqotay hab ay ku kasbadaan lacag ay noloshooda ku maareeyaan. soo la yaab maaha daawade. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, farsamadan cajiibka ee lagu sameynayo salladaha iyo alaabta kale sida ayaad u aragtaa? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube iyo facebook profile ka saaranna aad subscribe dhaado.